weydiiyey bal sababta ay ku diidan yihiin waxaana xildhibaan Shuuriye uu ku jawaabay موشكان وحنا نصور جدا فرحان موشين شرعي معها موشين وافقسن دستورك معها موشين سنة وجدت ومدى صوالي معها وموشين سخلة وتصور قري كلها مركة آدي آدي على روح المتعاطل وحاضرين وإن مركة سدحات وفشين هايو ووصل هاي الموشين حقا runtii hadda xillibaano badan way garaysan arrintaas laakiin Shuuriye haddii sidaad sheegayso aanu ahayn mooshin sharciga waafaqsan sidee markiisii horeba baarlamaanka loo keenay oo xildhibaanadu ay u soo jeedinayaan waxa weeye anagu waxaan nahay golaha sharci dejinta ama wixii fulin ah shaqo kuma lihin oo shaqo ku leh xukuumadda sida dastuurku farayo qodobka boqolaad xarbiisa iyo qodobka 99aad ay xukuumadda ayaa iskale hawsha tan hadda muushika laga soo qoray marka si khaldan ayaa xildhibaano kulley aanu fiirsanin baa soo qoray gudoomiyaha baarlamaankana waa ka xumaa mar walba waxu sheegaynay inaysan ahayn mooshin dastuurka waafaqsan asaguna aragtiis kulley loola weli garantay laakiin hadda maadaama xildhibaano afartan xogaa soo qoreen ayuu isku dayay inuu qanciyo laakiin arrintaas majority baarlamaanka ayaa ka horiyey waana marka saddexaad fashil mahayo waxay ku doodayaan maxay tahay oo ay uga soo horjeedaan oo mooshinkan hadda baarlamaanka markii saddexaad sheegaysid ay u soo hordhigayaan maxay tahay iyagu ay ku adkaysanayaan xildhibaanada mooshinka soo maray runtii waxaan rabaa inaan kuu sheego ma aha xildhibaanadii jubbooyinka ma aha arrimo badan baa isku dhex jira waxaa kamid ah rag badan oo maarata mataqaana arrinta federaalka diidan waxaa kamid ah dad kaloo jeedooyin kale leh sababtoo tahay waxaa weeye dad maanta israacay oo u baahan in wax lagu sii kaabo oo u baahan in lasii maarata mataqaana wanaajiyo maanta nin xildhibaan inuusan maarata mataqaana uusan dhibaato u beegsanin ayay ahayd laakiin Shuuriye ma aha soo maaha waxay ka soo horjeedaan federaal maaha waxay keenayaan meesha waxa weeye in xaqdarro maamulka meeshaas ka jira ay tabanayaan dadka qaarkii deegaanka oo ay sheegayaan in baarlamaankaasi la dhisay deegaankaasi Kismaayo aan loo dhamayn waxyaabahaasi ka cabanayaan ma aha waxaad sheegayso soo maaha aad leedahay waa dad ka soo horjeeda iyo dadaan gobolkii farxad wixii tabashaa wadadii loo jiray looga marin arrintu tabasho maaha waa la kala taban karaa markastoo wax la dhiso hadday noqoto midda federaalka hadday noqoto maamul goboleedka ka horreeyatan mar walba tabasho way jirtay laakiin qaabka hadda loo maray ayaa ku cadaynaya inuusan ahayn qaab tabashaa laakiin jeedooyin kale ay ka dambayso maxay qayla dhaanta uga soo yeeraysaa haddii aanay dhibaato ka jirin waxa weeye waa kuu sheegay jubbaland waxa weeye marxaladay soo martay waxa weeye macnaha mataqaan meeshii u dambaysay oo ay macnaha mataqaana xildhibaanadii ku samaysteen ayay maanta mataqaana samaysteen arrintaas ciddii tabasho rabta way tegi kartaa waan u sheegnay annagu waxaan ku celcelinay xitaa guddi xildhibaanaha ha la saaro ha tagaan Kismaayo dadka degan deegaanka xogta rabbuufintaas soo ogaadaan marka ma rabaan inay xog ogaadaan waa dad laablakaca waa dadaan xog ogaan u ahayn arrinta jubbaland dadka tahay Shuuriye maamul goboleedyo kale waddanka ka dhisan way jiraan iyo kuwo dhismay muddooyinkan dambaba wax cabashadaasi oo soo yeerayay ama baarlamaanka dhexe federaalka la hor keenayay ma jirin maxaad is leedahay waxbaa ka qaldan meeshaas waxaan ku leeyahay runtii markaan kuu sheego maanta wax ka qaldan ma jira waxaa weeye dadkaas la dagaalamay shabaab dadkaas xoreeyey ummadda Soomaaliyeed in loo hambalyeeyay ahayd in la garab istaagay ahayd waa arrin aad iyo aad looga naxo maanta macnaha mataqaan in waxa muushi ku sheegaa macnaha mataqaan maanta laga qoro haddii aan jawaabtaada ku celin waxay ahayd macnaha mataqaan maamul goboleedka ka horreeyay kuwan waa Puntland ahayd Puntlandna 12 sano jirtaa laakiin arrinta tan waxaa weeye maarata mataqaan waa arrin kulley cusub waa arrin maanta rag aan doonayna ama federaalka ama deegaanka u dhalanin ama 2016 in federalism muhiim galo oo doorasho la gaaro ka soo horjeeda waxaasoo isfiirsanin weeye ma aha dad macnaha mataqaana xaqiiqda ay wax ku salaynayaan iyo cabasho ma aha waa la yaqaan cabasho jidkii loo mari lahaa laakiin cabasho muushin lagu xalinayo weli ma dhicin wax macquulana ma aha farxad kaasi waxa uu ahaa xildhibaan Maxamed Ismaaciil Shuuriye oo isagoo jooga magaalada Muqdisho telefonka igu waramaya markaa kadib ayaan haddana isla